finalka kulanka ugu weyn adduunka ee El Clasico oo caawa dhaxmari doona kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. Haddaba maxaa ka cusub labada kooxood koor kulankooda caawa? Muuqaalkan ay ku gul wadaagi doona ay soo dhaw daawade balse marka hore waxa ka codsanaya inaad saarto muuqaalka si share kareyso sidoo kale aad ku soo biirto bogeyga Saamil Cadaala. Haddii aad igala socdo bartay TikTok waxaan ka codsanayaa inaad dirista jira ay daawado calaamada goob linki aad iyo aad ayaad u maasan tahay aniguna waxaan ahay Saamil Cadaala. Hagaag finalka Super Copa de España ee dhaxmari doona kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa ah kulan aad loo wada xiiseynayo oo soo jiidan doona taageerayaasha labada kooxood. Kulankan ayaa noqon doona mid adag iyadoo labada kooxood ay doonayaan inay ku guuleystaan koobkan muhiimka ah. Ciyaartan El Clasico ayaa noqonaysa mid aad loo xiiseynayo iyadoo ay jiraan xusuuso hore oo adag, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyay oo wada ciyaareen 4-0 El Clasico waxa ku adkaatay naadiga Barcelona isla markaana ku garaacday Real Madrid oo joogta garoonka Santiago Bernabeu. Tababaraha Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa si cad uga digay in aan loo dulqaadan karin qaladaadka ka dhashay ciyaartaasi, wuxuuna ka digayaa in ciyaarta caawa ay sameeyaan qaladaad la mid ah kuwii hore. Inkastoo ay ahayd guuldaro xanuun badan, Ancelotti ayaa ku kalsoon kooxdiisa iyo ciyaartoydiisa in ay ka soo kabsadaan natiijadaasi, waxaana ay doonayaan in ay qaataan koobkan Super Copa de España si ay u bilowdaan xilli ciyaareed wanaagsan. Real Madrid ciyaartoyda ugu muhiimsan ee kulankan laga daawan doono waa laacibka Brazil ee lagu magacaabo Vinicius Junior oo form fiican ku jira xilli ciyaareedkan. Ancelotti waxa uu rajeynayaa inuu hormuud u noqdo weeraryahanada kooxda Vinicius Junior. Xidiga Brazil ayaa qadar weyn ku ah kooxda Barcelona, sidoo kale waxa uu noqon doonaa mid muhiim u ah Real Madrid haddii ay rabaan inay ku guuleystaan koobka caawa. Dhanka Barcelona, Roberto Lewandowski weeraryahanka Poland ayaa xidig muhiim u ah kooxda Barcelona tan iyo markii uu ku soo biiray, wuxuuna noqon doonaa hogaamiyaha weerarka ee kooxda Barcelona kulanka caawa. Pedri iyo Gavi, labada ciyaaryahan ee da'da yar ee qadka dhexe ayaa muhiim u ah xakameynta dheelitirka ciyaarta iyo abuurista fursadaha weerar. Labada daafac dhexe ee kooxda Barcelona ayaa iyaguna waxa ay yihiin kuwa kale oo door muhiim ah ka ciyaari kara kulanka caawa, gaar ahaan marka loo eego khataraha kaga imaan kara weerarka degdega ah ee Real Madrid sida Kylian Mbappe, Vinicius Junior iyo Rodrigo oo hogaamin doona weerarka kooxda kubadda cagta Real Madrid kulanka caawa. Si kastaba ha ahaatee, ciyaarta finalka Super Copa de España waa ciyaar adag oo la filayo inay noqoto mid xiiso leh iyadoo labada kooxoodba ay ku jiraan xaalad wanaagsan. Real Madrid waxay doonayaan inay ka soo kabtaan guuldaradii weyneed ee El Clasico iyo inay koobka ay qaadaan, halka Barcelona ay doonayso inay sii wadato guulaha iyo inay ku guuleysato koobkoodii ugu horeeyay xilciyaareedkan. Los Blancos ayaa soo garaacday kulankii hore Real Mallorca semifinalka, halka Barcelona ay ka soo gudubtay Atletico Bilbao. Labadan kooxood ee ka ciyaara horyaalka La Liga ayaana haatan isku diyaarinaya inay u dagaalamaan koobka sanadkan. Haddaba maxaa ka cusub labada kooxood Real Madrid iyo Barcelona koor kulankooda caawa dhanka dhaawacyada iyo kanaxyada? Haddii aan ku hormar Real Madrid, kulankan waxaa ka maqan daafaca Brazil Eder Militao, David Alaba iyo Dani Carvajal oo kulankan la arkaynin. Sidoo kale Real Madrid wax shaki ah ma qabto kulanka caawa. Dhanka Barcelona waxaa ka maqan golayaheeda Marc-Andre ter Stegen, Marc Penal iyo Andres Christensen. Shaaca macquulka kulankooda tiyaar raaciyana Real Madrid kulanka caawa waxaa u soo gali kara golahaye Thibaut Courtois, Vasquez, Tchouaméni, Rudiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrigo iyo Bellingham, Vinicius Junior iyo Mbappe. Halka Barcelona kulanka caawa ay u soo gali karaan golahaye Szczesny, Julius Kounde, Cubarsí, Martinez, Berdi, Casado, Pedri, Yamal, Gavi, Rafinha iyo Lewandowski. Kulankan ayaa caawa waxa uu soo galayaa 4 saacadoodnimo saacada Geeska Afrika. Haddaba kulankani muxuu ku dhamaan karaa? Yaa soo koob qaadi kara caawa, Real Madrid mise kooxda kubadda cagta ee Barcelona? Aragtida waxay tahay qaybta hoose ee kommentiga ugu reebnaa.